السلام عليكم. halkani waa Grand Online Academy. magacaygu waa Dr. Maxamuud Maxamed. waxaana doctor ka bixiya maadada barashada daawooyinka ama pharmacology-ga ee Grand Online Academy. Maanta waxaan ka hadli doonaa daawooyinka lagu daaweeyo gastritis ama gastrida. Gastritis waxa weeye magacu inoo sheegay waa caabuq ku dhaca caloosha. Marka that's known as gastritis. Marka waxa keeni kara daawooyin baa keeni kara. Waxa keeni kara bakteeriyada loo yaqaano H. pylori oo iyaduna gastrida keenta. Waxa keeni kara waxa weeyaan chemicals amaba waxa weeye haddii waxyaabo uu qofku cabo chemicals ayaa iyaguna gastritis ka keeni kara. Marka daawooyinka lagu daweeyo ayaabaynu marka casharkan ku baranayna. Daawooyinkani way badan yihiin. Marka waxa kamid ah proton pump inhibitors baa kamid ah, H2 blockers baa kamid ah. iyagoo faahfaahsan baynu arki doonaa. Imika waxaanu ka hadlaynaa marka proton pump inhibitors ama PPIs daawooyinka loo yaqaano. waana daawooyinka inta badan dadkeenu aad ku isticmaalaan. waxaa kamid ah lansoprazole, pantoprazole, omeprazole. marka zol baa ugu wada dambeysa. daawooyinkani sidee u shaqeeyaan? waxa weeyaan daawooyinkani waxay xanibaan proton pump ama hydrogen potassium ATPase pump oo caloosha ku yaala, gaar ahaan unugyada parietal cells-ka la yiraahdo ee soo saara acid hydrochloric acid caloosha. marka waxay sameeyaan marka pumpkan laga shaqeysiyo in hydrogen ion oo ah acid lagu soo daayo caloosha ayaabay keenaan. marka daawooyinkani waxay xanibaan oo si joogto ah shaqada uga joojiyaan pumpkaasi. kadibna waxaa dhacaya totally waxa istaagaya in la soo saaro waxa weeye wax acid ayaabaa dhacaysa. marka daawooyinkan acid ay si completely u joojiyaan. waana ka wanaagsan in daawooyinka kale sida H2 blockerska oo markaa histamine shaqada ka joojiya. maxaa loo isticmaalaa daawooyinkan? sidaynu soo sheegnay gastritis-ka loo isticmaalaa ama gastrida. marka waxaa loo isticmaali karaa soo kale GERD amaba gastroesophageal reflux disease, laab dilaac. marka qofku reflux fara badan yeesho ama laab dilaac saayida oo marka ay wax u tari waayaan antacids-ka kale, amaba qofku waxa weeyaan markuu lifestyle modifications hadduu buuran yahay miisaanka inuu iska yareeyo wey. marka hadday waxyaabahaas waxba kasoo tari waayaan qofku isticmaali karaa. sidoo kale peptic ulcer disease ayaa lagu daweeyaa nabar markuu caloosha ku samaysmo amaba hunguriga ku samaysmo ama mindhicirka qaybtiisa hore ee duodenumka uu ku samaysmo oo loo yaqaano peptic ulcer disease ayaabaa sidoo kale lagu daaweeyaa. side effects-ka daawooyinkan ay leeyihiin maxaa kamid ah? yalaalugay keeni karaan, shuban bay keenaan, madax xanuun bay keenaan, GI disturbance bay keenaan. sidoo kale daawooyinkan waxaa lala xiriiriyaa osteoporosis, inay lafuhu markaa si fudud u jajabi karaan. marka waa in qofku markii uu baahdo markaa uu dhakhtar soo qoro uu isticmaalaa. sidoo kale waxaan halkan uga faa'iideysan doonaa inta faraha badan leh dadku waxay ka cawdaan laab dilaac saayida. inta badanna waxaa lala xiriirinayaa waa cuntooyinka qofku cunayo. qofku hadduu buuran yahay waa inuu miisaanka iska rido, exercise sameeyo. habeenkii waa inuu xilli hore casheeyo si aanu waxa weeyaan isagoo dheregsan hadduu qofku sariirta tago markuu jiifsado waxaa dhacaysa in acid caloosha dib u soo noqoto marka uu reflux uu yeesho. marka waxyaabahaas markuu qofku sameeyo waxa laga yaabaa inuu xanuunkii ka tago inuu dawaba u baahan. marka lifestyle modifications baa la dhahaa inuu qofku hab nololeedkiisa uu wax ka bedelo weeyaan. dawadan markuu dhakhtar soo qoro uu qaato. casharka oo faahfaahsan waxaynu ku dhigan doonaa insha Allah classka dhexdiisa. waxaa socotay isqorista fasalo cusub oo barashada daawooyinka qaab online ah adigoo gurigaaga jooga. nambarada hoose ayaad la soo xiriiri doontaan. sidoo kale ha mogaanin inaad videoga sii baahisaan si uu dad fara badan u gaadho. aad baad u mahadsantihiin.